ورمانتا garxajso midka dagaalami kara war ma idinka maanta awood iyo capacity-ga had ku dagaalanta midka maanta leh war habar jecel ciidii ku dhow wallahi billahi tano kuwa idin ku digareeyay ee la dagaalka gala ee la waxa nabad dabka nala suuray garxajso dabka nala suuro habar jecel shalay maali guul bay wahay iyo ma kala jecla waxa leeyihiin waa lagu dugtaa ruux haduu ku danaan jiray baldayaay wa kuwa nimankii yusra harti way iyagu leeyihiin nimankii yusra harti ama garxajis harti waa kuwa si dabeeshaday bal dhageysta beerkii geelaaga ilmo yar oo kale siyaaba saas soo dhacayaniyo suul gariyo ku qabanaya adna halka ka faataa baqlanaysa hadii na laayo de no soo gurmada inaan ku soo gurmaneyn ba wallahi waarkii ku hawash guro way waa kulay ciidamada SSB baxay SSB baxay garxajis garawaanay xawada ku shubaan hodhow dhahan daadar gaclay day to day marba maalin way maalinteedii way adiguna maalintaada soo martay qolii hawara wal xilay ma taqaana waxaanu soo direynaa walaalayaalow waxaanu soo direynaa raashinka briiska saliida laga waay maayo bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhageystayaal soo dhawaada meel kasta joogtaan waxaan rabaa inaan idinka warbixiyo xaaladihii ugu dambeeyay ee magaalada Corigaabo dagaalkii shalay dhacay iyo xaalku halka uu ku dambeeyay dabcan ninka lagu dilay Corigaabo maanta ee ganacsadaha iyo nabadda ay ku dhawaaqeen waxgaradka iyo ismada beesha garxajis qodobka waxaan ka oran doonaa iyo xaalku waxa uu ku dambeyn doono insha Allah muuqaalkan si shargalay meel dheer gaarsiin ugu horeen waxaan rabaa inaan xaqiijiyo shalay galab ayaa fooda la istaraysiga la socoteen dagaal weyn baa dhacay dhimashada xaggooda waa 8-9 labadaas la isku hayaan laakiin way qarinayaan laakiin already hadda waxay qireen in ay dagaalkii dambe shalay tii aarka ma aha tii waxa weeye Sheekh Salman loogu aaray saddexdii loogu aaray ma aha dagaalkii dambe iyagu shan bay sheegeen laakiin waxaana loo xaqiijiyay oo iyaguba ay xaqiijinayaan in ay tiradu ay inta ka badan tahay oo ay 6 nin ay ku dhinteen dagaalkaasi iyo saddexdii hore ee loogu aaray Salman halkaasi waa 9 kan shalay idin sheegay dabcan magacyada ayay baahiyeen dabcan daawadayaal xubnaha geeriyooday waxaan rabaa inaan sidoo kale xuso ragga dagaalka ku dhintay waxa ku jira nin xildhibaan oo golaha deegaanka ee degmada Corigaabo ku jira way qarinayaan inuu xildhibaan yahay laakiin iyaga dhexdooda ayaa shalay xaqiijiyay niman habar jeclaa iyo niman garxajso shalay meeg soo haysta ayaa cadeeyay ninkaasi inuu yahay nin xildhibaan ninkaas waxa la yiraahdaa Caydiid Faarax Xaaji waa xildhibaan golaha deegaan ragga ku dhintay dagaalka ayuu ku jiray waana xildhibaan dabcan waxa kaloo geeriyooday xaggooda ka dhintay Hayba Jaamac Ismaaciil Tuke Xasan Jaamac Ismaaciil Dafac geele ciga Daawan iyo Shira Qiiq waxa kaloo noo sheegay in ay tiradan ay ku jirto sidoo kale nin lagu magacaabo Maxamed Cabdiwali iyo nin lagu magacaabo Kaysa Weyne intaas ku dhimatay dagaalkii iyo saddexdii ka horeysay dagaalkaasi ayaa khasaaruhu ay jiraan maanta marka waxay magaalada Corigaabo dil gaadmaha ay ku dileen nin ganacsada oo dhul bahanta oo markaasi Corigaabo ku sugnaa xilli aroor hore ay ahayd oo goobtiisa ganacsiga ku sugnaa ayay dablay waxa huwaysan weerareen waa ayna dileen halkaas ninkaas waa uu geeriyooday waxa magaciisa lagu magacaabaa Umar Sanjacoor baa la yiraahdaa waa nin dhul bahanta oo reer Isasi Qaatuma dabcan haddaba arinta nabadda oo iman doona ay ku dhawaaqeen beelaha garxajis waxaan rabaa inaan arabaabo dilkaas dambe waa ognahay Sheekh Salman dilkiisi waxa uu shalay aaday in 9 ay u geeriyooto 9 in la istul saaro dilka maanta Umarna waa ka jawaabaynaa waliba si weyn baan uga jawaabaynaa si toosa ma qarsanano lama dhuumanano waa ka jawaabaynaa taas waa qodob arinta nabadda ay ku dhawaaqeen waxgaradka ismada beesha garxajis ama gudida beesha garxajis waxay sheegeen inay nabad ku baaqeen nabad bila shuruuda nabaddu horta cid gooniya oo ay la dhalatay absolute ma jirto nabaddu waa tii aanu sanadka ku joognay waa tii aanu sanadka ilaalinay waa tii aad intaadna soo wacdeen garxajisku ay markay reer SSO ay dhaheen muusaanu ishayn ilmaadareelo dhabarka naga tooganina ilmaadareelo dagaal baan ku jirna ninka habar awal baan dagaal kula jirna iyo xulafadiisa habar jeclo warnimayaho ilaahay baan ku dhaarshay dhulbaanta dagaal lagu soo qaadina iyo reer SSC Qaatumo arintaasi waa la qaatay
وحوي عد قلوبتي أما دباتيسي أما ليسي مجرد حتى وحي أنو وحوي هدي على كوري وحوي دورني إلالني وأنا لو ما كان يساق ويا يسحي يسكن إحنا مشكورين إذا ما قاطه تعيد على صوت معري إلى صوت أحمر جرحس بالنقطة وأنا دلك بريركا السلمان لجوا رأي كبرعوات عرقابنا وحي نبدأ أدي دلكاسي كبلا وضي عرقابه سلمان آدن عبد المدوي وأنا تي عرقابه اللي وكل جور الهوي ورنبدنا الليني وبلا شروط أرجع سمعني سحوي مقالة دانتي هذا أنا معمول دانت هذا أنا أكون معمول أنا أكون دولة ديني ورنبدا النبض حرميسا أما عرقابه كهير جلسة معه ولا لو حنلاقي أنت أمسكتين عرقابه إن معمول كخوارجتا إجابة عرق حسد أسلم إنه حافظ حرتي أو معموله نبض أنت أكيد تجتي أي دي جرتا مركب هروي يعني دورني أها إن أنا قعدت كسر من الدنبيل ياشي دجال كلاس أنا قيبتك أها ciidamada militarigu ay SSC khaatimo ay ku raad joogeen aanu idinku ilaalinayna aan lahayn war nimankaasi muddo 30 sano waxa way dhibaato haysatay war nimankaasi bal hadii la kuuran yahay waa idii soo waxa way eersadeen oo waa idii soo erga tageen oo waa idila soo hadleen oo si raganimada ay idila hadleen nimanka garxadis war nimanka xaasha wuxuu maanta dhabarka ka toogeen oo muuse weerar ku qaadin nimankaasi iyaga arrimahooda iyo conflictigooda iyo waxa dhaxay ku jira banaanka ka ahaado walaalaha tayidi kaaba muuse ka soo horeeyba marka inaanu idi basrino inaanu hadii la kuuray aynu kala baxno waa sharci waa waajib weeye nabada cirigaabo anagu waa jecelahay waliba isbisha Abbas Madinahan sababtoo in dhibaato dhacdo ma jeclin laakiin cidda dhibaatada wada cidda duulaanka ah cidda muuse soo isticmaalay soo dhinac maray war waa idinka weeye ha marna nabad baanu doonaynaa oo dhul bahanta garaadada ismada madaxda khaatumo تلافكت وعتان كوا رئيسان هل دور كي اللي دتك إلت كنوع أنا أرجع ترى هدي له كوري يصير أقول ليسان وروح حاسس لباس يسجل معه أردت أيكها لين أهري البادية الله يسين وريا أفر بالمين أنا والدجال كوتشر أو هدي له كوري دجال كسب بحنا أو عدود دي أود دي اللوجي أو يساق أنو كل حاجة أو أنو كل عرف قاضي مركز البادية هي الله يسين عطو يا علاء نلقى مقل حاشا وجه وانا امسن وانا ارسلنا سيمبل waxa atawdan waxa calaalkan war maanta garxagso midka dagaalami kara war midka maanta awood iyo capacity-ga hadii ku dagaalanta midka maanta leh war habar jecel ciidii ku dhow wallahi billahi tano ku ay ku digalayay ee la dagaal gala ee la waxa nabad dabka nala suuray garxagso dabka nala suuro ee ku diganay ku faraxsan codkan dhageysta ilmaada ilaahay baa ku dhashay bal fiiri TikTok meel walba Facebook habar jecel shalay maalin guul bay weyn iyo ma kala jecelahay waxa leeyihiin waa lagu dugtaa ruux haduu ku danaan jiray baldayaay waa kuwa nimankii yusra harti waxay iyagu leeyihiin nimankii yusra harti ama galxis harti waa kuwa si dabeeshaday meel dhageysta beerkii geelaaga ilmo yar qalasiyaaba saas soo dhacayniyo suul gariyo ku qabaya أما هالكلام كفاتا بخلانيسا هدينا للايو دي نو سو غرمدا إنانا كو سو غرمدين با والله ما بيهنا عرارة أو تشفي ير هوسو نالي أحمد سقال شركة دكتور كاية هيدية أرجع سكعلية حلبان بلقات دلي عاقل بلقات دلي وريا إنا عيدت حلبان قلها دكان كدقون عرقابوها والله وبلاي وطلاي وانا بنت وريا أنا كرحت سو واحد فان كان يفرخنا war maanta nabada aniga maanta soo reer arteemay soo dhul bahantaamay soo reer isqaatoomay Soomaalidu waxay tiraahdaa nin qoyan bias kama dhowro aniga dagaalka bay ugu badisaaba dagaalka waa halkii waa abwaan dhuuladaan daansiga buuqa waa inoogu darartaa way uga dartaa reerkayga daan nabadeed aba calluux walaha war anaga nin qoyan bias kama dhowro dagaalka baa anaga xalkayga ku jira sababta waxa way magaalooyinkayga ee deegaankayga iyo dhulkayga ayaan gacanta ku dhiganaa oo aan ku kala calaf qaadana war maanta idinka tantu nabadaydu ku jirto oo sababtu maxay tahay war kursi baad soo doorsan raadinaysan second citizenship baad ka tiin asanab war yaara hadeen kursi baad raadinaysan muuse fursad u raadinayna waa helay six bay u dhacdo oo muxuu doonay inuu ceerigaabo iyo carra sool iyo sanaag iyo cayn u dagaal ka abuuro تينا وارمود الرودي absolutely أنا ولا قادنا موسى ولا قادنا من ده ويدي شيء
maanta muuse inaanu doorasho qaban anay gacanteeda ku jirtaa wallahi anay gacanteeda ku jirtaa oo billahi anay gacanteeda ku jirtaa oo talaha gacanteeda ku jirtaa sababta idin sheegay waraa cidda fariimaha joogtay xabada bilaab ka tamaanta anaga way waraa haddana maanta qurrud qabsado oo aan oog qabsado oo aan ergaabo qabsado waraa doorasho dhacsan maxay tahay muusena shadax sanad waxa way hadii la kuuray extension helaya adigana waxa adoon bad ahaanaysa xaggan ana kugu talinay xaggan habar walba kugu talinaysa waraa ma dagaalabi kara waraa buurba fuushay garxigso buurba fuusheen kolka buurta fuusheen maxaad buurta ka soo hideen buur baanu fuulay waanu halganay doorashada khasab baan ku keenay fatadicida waraa anaga beeni wala haw dadka u sheegi jirnay sharci santay saaqbatiin runta idin sheegaya buur baad fuusheen buurti maxaad ka faa'iideen hal arrin baad ka faa'iideen oo Soomaaliyeed ku xasuustaa wiilkiisa digiinaha ee barkhabatuun in adeerkii inaad madaxda kaga istaagtaan muuqaal faro ka dawataan inta uba ka faa'iideen wax kale oo ka faa'iideen ma jirto argabaanaale mid bay idin sheegay war argaabo ku kala baxanaa turwi xalana waa shay ninkii awood laban argaabo u haraya nabad baanu doonaynaa mar activity nabad baanu ka doonaa ka dhaha oo ka cala dadkan hadii qaad fulinimo argaabo waxa way hadii la kuriyay ku gaada nin baa waxa laga hayaa islaantiisii buu xogaa maraa iyagoo wada xaajoonay ay marba meel bay isu luluxisay moogta markaas uu na isku hayn iyo kala hayn midun ogolo garxadso war nabadii colaad wax u dhaxeeyo ma jirto nabaduna maanta cidda u baahan ee danta ugu jirto waa adiga weyn sida muuqatana oo xaqiiqa annaga waxay idin sheegaynaa cerigaabo dadka ku nool intooda hartiga xafada hartiga ku nool baan u talinayaa baad leedahay baan u dowladeynayaa baad leedahay haye ma suurtagelaysaa markaa inay nabad halkaa ka dhalato waa may weyn ka daaya garaadadayeeda ka daaya ismadeeda wicitaankan lafta u keenteen ee aad wacaysaan leen walaalayaal please fadlan waxa weeye nabad baan u baahannahay iyo hoos ka sii ma suurtagelayso dilkaa maanta dhacayna waa ka jawaabanaa nin hortii catow iyo calaacal lagu bartay ma yihi tolkay way ka jawaabayaan weliba waxay uga jawaabayaan sida ugu dhaqsaha badan dhiigga wiilka darwiishka dhulka uma dhaco taasna waa taa argaabo hal bay leedahay halka xalay leedahay maxaa waaye waa in qolo walba daanteeda maamulato way noqon weyday Soomaa idinka iga yaqaan waxay noqon doonto idinka iga yaqaan waayo waan ogahay waxay dhaxli doonto waa in fooda la istaro weey waxaan rabaa reer ACC jamaahiirtana u diro diyaar garooba meeshaad lix ka joogtaan dagaal laabta ka ogaada waxaa naloo sheegay in baasha fanax oo araba oo ciidankay waxa la ka saaray muuse og meelaha soona cirigaabad bayna ku sugan yihiin dagaal bayna rabaan in qaadaan meel bay rabaan in weeraraan muuse waa inay idin sheegay 6 bay u dhacday waxaan in badan moosan ilaalinaynay oo aan la bal u kaadi nimankaasi dhowr jeer bay idin catoodeene bal u kaadi waa iyagii baa ka soo hormaray iyagii buu soo isticmaalay marka inaan la gubno oo aan la gurino waxa way hadii la kuuro yahay waa shakal ah hala diyaar garoobo ninkaas ciidan wato waa la noo sheegay meelay rabaan inay galaan hala feejignaado yaa nina cid laga helin feejignaan ballaaran hala sameeyo mid kale waa idinka codsanayaa jamaahiirta reer ACC mid degmo ilaa tuulo ciidan la duubi karo yana jirin xogta sirta ciidanka hala ilaaliyo ciidan ba halka maray ciidan ba halka u baxay hala jooji stop hala jooji sirta ciidanka hala ilaaliyo dadka ciidamada sirtooda iyo muuqaalada laga duubayo hala joojiyo taasina waa arfays aan idin siinayo oo ah inaad u diyaar garoodaan insha Allah taala waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaan leeyahay garxadis nabadu maanta idinka u baahan anagu maanta uga baahanin anaga waliba dhulkayga baba daqiiqeyn ergaaba naga maqanba cidda nabadu u baahan inay nabada ku fara adeegto wallahi waa idinka weeyay haddaan nabada ilaalin weydaan oo afxumada aad ilaalin weydaan ogow wallahi billahi tullahi saacad ay ka qaadan mayso gabiga inta ergaabo joogta inaan qaarna maxaabis ka dhigo qaarna hadii la kuuray cid hoos maraan habar jeclana waa kuwa salay caayisay weey waa kuwa waxa ku diganaysa weey maanta iyada sajaanis bay haysataa waa arkay kuwa habar guro weey waa kulay ciidamada SSB baxay galaxsiga rabaanay xaawada ku shubaan hodhow dhahan daadar gaclay day to day
مرة مالين وي مالين تيدي وي أدينا مالين تاد صوم مرت قولي هبرة ولا حلية متقنا waxaanu soo diraynaa walaalayaalow waxaanu soo diraynaa raashinka briiska saliidda laga waay maayo ha moogta hiil isaaq baan soo diray iyagu intaa bay ku filayeen kursiga waa fadhiyaan midna way idin sheegayaan muuse 6 bay u dhacday meesha ergaaban oo ka qiiq doontaa nabadini ma jirto ha laba qolob oo daran tahay maanta oo ergaaba ku sugan qolo waa garxads doorasho doon ahayd oo dhamaatay god bay uga dhacday muuse waxa weey hadii la kuurayay dagaalkaasi waa ridayaana waa la qaadanay muuse waa kula qaadanay dagaalka waa kula qaadanay si toos 3 sano extension ugu dhuftaa ninkaan kala baxno oo magaalada Ceergaabaan ku kala baxno qolada labaad waa qolo horgalo ah oo hartiya oo Ceergaaba ku sugan oo lufluf ku haystay jabada arkaxsada sana qoliyahaasna waxaan leeyahay god bay ka dhacday marka baashu kulaato oo baashu dhamacdo idinka la idinka bilaaway intaas waa inta waxaan arkay iyagoo le eeri dhaga badane ishada la darasada baa la soo eriyay waa been arrintaas waxba kama jiraan geelaasi ciidamada maanta loo qalay ilaa 200 halaad bay hayn sida loo xaqiijiyay ciidamada kuwa cayn iyo kuwa sool iyo kuwa hadii la kuuriyay sanaagba waa la gaarsiiyay intii kalena kayd ba ciidamada loo dhigay geelaasi wuxuu ku dhawaalaa 380 sano la sheegay ciidamada loo qalayaa taasna waa taaway dadkaasi waa arkay kuwa la geeray ba qayb aaka lagu soo celin maxaa aaka gawaarida barbogosyada ku soo dagaal tagtaba laga qabsaday marka intaas waa inta khayr baa idin rajeenaya insha Allah ta'ala muuqaalka si shar gareeya anagu waxaanu ka shaqeynaa wadanta dadkayga weey simba waxaanu taaganahay danta dadkayga weey absolute wararka hadii nabad laga helo oo ay nabad baan doonina war xafadina maamusho war xafadina maamulana war taana ragacali weeyde waxay rag weeshi baa waa nabad baa leey Soomaa taas wadina laakiin walaahow ya hadal media laga sheego iyo host ka si ma suurtoos isku haynta iyo kala haynta ilmaad realo mid uu kala idinku yimaado insha Allah ta'ala khayr baa idin rajeenaya